بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وناكسين داوديال كسو دوادا مركا ليا برنامجك وراركا عاوة قضبادة برنامجكنا عاوة أن يدكو هينو وحاكمده kooxaha iska caabinta Gaza oo ka warbixiyo qarax lagu burburiyay gaari Israa'iili ah gudaha xaafadda Al-Zaytuun ee Gaza. Israa'iil ayaa sii wada beegsiga teendooyinka barakacayaasha Gaza iyo qorshaha qabsashada magaalada Gaza. Tirada suxufiyiinta Gaza lagu dilay oo gaartay 239. Xafiiska Netanyahu oo war ka soo saaray heshiiska xabad joojinta ee Xamaas ee aqbashay. Denmark aqoonsiga Falastiin waa arrin waqtiga kaliya dalal badan oo Yurub iyo Kanada ahna ku biiraya aqoonsiga qaramada midoobay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo meesha ka saaray ciidan Amerikaan ah oo la geeyo Ukraine iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo amaanay shirkii Alaska dhammaan qodobadan iyo kuwa kale ee qaybtii falaqaynta iyo wixii warar degdeg ah inuu soo kordhay inta barnaamijkan ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa soo gudbinta barnaamijkan waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta Kamal American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah waad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal maxamed cade oo wararkan u soo duway ayaa khadka ku jira maxamed inoogu bilow wararka ugu waaweyn caawa Saraayo Qudus ayaa waxa ay sheegaysaa inay burburiyeen gaadiid military oo ay Israa'iil leedahay waxayna la egteen qaraxyo isagoo marayay xaafadda Al-Zaytuun ee koonfurta magaalada Gaza waxa ayna arkayeen dagaalyahanadu Israa'iil oo ciidankeeda dhaawaca ay kuwa dhintay daadgureynaysa maanta waxaa gashay maalintii 683 ee dagaalka xasuuqa ee ka dhanka marinka Gaza ciidanka Israa'iil ayaa wada inay bartilmaameedsadaan teendooyin ay ku jiraan barakacayaal iyo dad gargaar raadinaya iyo iyagoo wada in ay weerar ku qaadaan deegaanka Khan Yunis xaafad ku taala oo la yiraahdo Mawasi waxayna xabado ku fureen dad samafal doonayay oo ku sugnaa waqooyiga Rafah ee koonfurta marinka Gaza dhaawac iyo dhimasho intaba waa jirtaa ciidanka Israa'iil ayaa wada in ay burburiyaan guryaha marinka Gaza ku yaala ayagoo isu diyaarinaya waxa lagu sheegay qorshe military oo ballaaran oo ay rabaan magaalada Gaza iyo deegaanada ku xeeran in ay qabsadaan iyada oo abaanduulaha ciidamada qalabka sida Israa'iilna uu u soo bandhigayo wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz qorshaha uu rabo inuu dagaal ku galo 46 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay meelo kala duwan oo ka mid ah marinka Gaza sida ay sheegayaan ilaha caafimaadka ee Gaza waxaana muuqata in tirada suxufiyiinta ah ee ku dhintay dagaalka marinka Gaza inay hadda tiradooda gaartay 239 warbaahinta marinka Gaza ayaa ku waramaysa in tirada suxufiyiinta ee dhintay si olakaca ay Israa'iil u dilayso xafiiska Netanyahu ayaa dalbanaya in kontanka maxaabiista ee ururka Xamaas gacantooda ku jira in la soo daayo warbaahinta rasmiga Israa'iil ayaa sheegaysa siyaasadda Israa'iil inay tahay mid joogto ah wax isbedelan uu ku imaanin Israa'iilna waxay dalbanaysaa in maxaabiista dhammaan la soo daayo sida ku xusan xeerarkii la isla gartay Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee laga qaaday ururka Xamaas inay dhow yihiin in la dhammaystiro mana ka hari doona bay yiraahdeen Israa'iil ilaa iyo inta maxaabiista kulligood la soo deynayo
hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka Yair Golan ayaa sheegay in xukuumadda Netanyahu iyo Smotrich in ay afduubeen wadanka lacagtana ay ku kharash gareynayaan dagaal madhamaata ah. xukuumadda ayuu waxau ku eedeynayaa in ay miisaaniyaddii wadanka ay burburisay islamarkaasna hoos u dhac dhaqaale oo balaayiin doolara uu ku yimid dhaqaalaha Israa'iil halkii laga shaqayn lahaa in maxaabiista la soo celiyo dagaalkana lasoo afjaro. sicir barar waalan ayaa ka jira Israa'iil ayuu yiri, canshuurahana waa kordhayaan. Israa'iilna waxaad moodaa in dhaqaalaheeda uu burburayo iyadoo Netanyahu uu ku dadaalayo iyo saaxiibadiis inay xukunka kusii dheganaadaan si ay siyaasad ahaan u badbaadaan. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Denmark Lars Rasmussen ayaa waxa uu sheegayaa in wadankiisa uu doonayo in uu aqoonsado xukuumadda ay leeyihiin Falastiiniyiinta, taana ay ku xirnaan doonto waqtiga. gabadha wasiirka arrimaha dibadda u ah wadanka Finland Elena Valtonen ayaa iyadana hadal sidaas oo kale jeedisay, waxayna sheegtay in dalkeeda uu sugayo waqtiga sax ah oo ay ku aqoonsan lahaayeen xukuumad ay leeyihiin Falastiiniyiinta. madaxweynaha Finland ayaa isagana sidoo kale ku dhawaaqay bishan horraanteeda in wadankiisa uu doonayo inuu aqoonsado xukuumad ay Falastiiniyiintu leeyihiin. wadamo ay ku jiraan Britain, Faransiiska, Canada iyo Malta ayaa hore u sheegay inay aqoonsan doonaan xukuumad ay Falastiiniyiintu leeyihiin kulan guud ee qaramada midoobay ee la qaban doono bisha Sebtembar. madaxweyne Trump ayaa weydiistay damaanad qaad xagga amniga ah sida uu noqon karo marka ay timaado joojinta dagaalka Ukraine. waxaanad moodaa in uu leeyahay madaxweynaha Faransiiska, Jarmalka iyo Britain iyo wadamada kale ee raba inay ciidamo diraan in ay ka hadlaan dhibaatada waxa ay la tahay. mar la weydiiyey madaxweynaha Mareykanka, dowladda Mareykanka inay ciidamo u dirayso in kale wadanka Ukraine si damaanad qaad loo siiyo dalkaasi, Trump ayaa waxaad moodaa in uunan arkaynin in arrintaasi ay dhici karto. waxa uu sheegay in uu isku dayayo in uu joojiyo dadka dhimanaya ee dagaalka ku dhimanaya. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegaya in dowladda Mareykanka ay doonayso inay gacan ka geysato sidii amniga looga shaqayn lahaa, tusaale ahaan sidii xagga cirka looga taageeri lahaa Ukraine. wuxuu ku nuuxnuuxsaday in haddii uu ku biiray NATO in aanan la damaanad qaadi karaynin amniga Ukraine. wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay kulankii Alaska ay ku yeesheen madaxweyne Putin iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Trump in uu muujinayo in Trump iyo kooxdiisa in ay dhab ka tahay in ay doonayaan in nabad waarta laga gaaro wadanka Ukraine. Lavrov ayaa ku tilmaamay jawiga uu wada hadalka ku dhex maray Putin iyo Trump ee Alaska ka dhacay inuu ahaa mid wanaagsan. waxaa cad buu yiri in madaxda wadanka Mareykanka iyo kooxda la shaqeynaysa ay dhab ahaantii doonayaan sidii lagu gaari lahaa natiijo nabad waarta lagu gaaro oo la isku halayn karo. Lavrov ayaa warbaahinta wadanka Ruushka qaar ka mid ah warkaas u sheegay. xukuumadda Iran ayaa beenaynaysa war lagu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee Daily Telegraph la yiraahdo oo sheegaya in tiro maxaabiis ah wadanka Iran loo soo gacan geliyay ciidamadooda ilaalada kacaanka, waxaana soo wareejiyay baa leeyahay ururka Taliban ee wadanka Afghanistan. waxaana warbixintaasi ay Iran ku sheegaysaa inay tahay mid sal iyo raad toona aan lahayn, ujeedaduna ay tahay in dareenka laga leexiyo xasuuqa Israa'iil ka geysanayso marinka Gaza. wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Iran ayaa sheegtay in bayaanka lagu daabacay wargeyska The Telegraph ee wadanka Britain ka soo baxa ee la xiriira in Taliban iyo ciidamada ilaalada kacaanka inay iska kaashanayaan liis dad maxaabiisa inay tahay arrin lala yaabo
mana istaahishay buu yiri in laga jawaabo. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran ayaa ka baaraandegaysa in Telegram warka ka soo baxay in uu la jaan qaadayo ole magaca loogu xumeynayo waddanka Iran oo ay ka dambeeyaan warbaahinta Israa'iil oo looga gol leeyahay in dareenka laga leexiyo xasuuqa Israa'iil ka geysanayso marinka Gaza. wargeyska Telegram ayaa ku waramay isagoo soo xiganaya saraakiil sarsare oo Iran iyo Afghanistan oo sheegaya in ciidamada ilaalada kacaanka ay bilaabeen inay dabagal ku sameeyaan canaasir looga shaki qabo in lagu xiriirinayo ciidamada sirta ee waddanka Britain ayagoo isticmaalaya dokumentiyo laga soo qaaday wasaaradda difaaca ee waddanka Britain oo Iran ay ka heshay waddanka Afghanistan oo hadda Taliban ay maamusho. waa gartay aad baa umahadsantahay maxamed. daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa qeybta labaad ee barnaamijka falaqaynta iyo wixii warar degdeg aan ugu soo kordho, balse aan ku hakano qadar xayeysiisa. ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka khaliijka, Yurub iyo Maraykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho? Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyey badqabka caafimaadka xoolaha. hadda dalbo hilib geel, lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka wararka caawa. waxaana soo gaarnay qaybtii falaqaynta. waaya maxamed, waxaad inoogu bilowdaa falaqayntan ku saabsan khilaafka Israa'iil iyo wadamo badan oo reer Yurub ay dunidoo dhan oo hadda ugu dambeyso Australia ugu dambeyso. cilmi baaraha Xusaam Shaakir ayaa arrintan wax ka qoray, bal inooga waran. Xusaam Shaakir oo ah cilmi baare arrimaha caalamka ayaa waxa uu sheegayaa in Israa'iil kasoo horjeedka ay kasoo horjeedo in daboolka laga qaaday in xukuumadeeda ay si waalan xiisadda warar been abuura ugu darayso oo tilaabo loo tixgelinayo in haddii wax yar oo garaabida Falastiiniyiinta loo jeediyo inay propaganda afuufayaan. Shaakir ayaa sharaxaya in falcelinta Israa'iil aynan ahayn oo keliya mid dareen muujinaysa waxay tahay mid olakac ah oo laga gol leeyahay in caalamka ay afxumo iyo tillaabooyin ka qaado ay ugu hanjabayso dalalka qaar mowqifka ay qaadanayaan ee la xiriira in Israa'iil uu ka dhan yahay. waxaadna moodaa in siyaasad ay qaadayso Israa'iil lagu cambaareynayo dalalkaasi, wuxuuna hoosta ka xariiqay Israa'iil inay dardar gelisay afxumo ku wajahan hogaamiyaasha wadamada qaar laga bilaabo Britain ilaa iyo Australia. fariintana waxa ay tahay in aanan marnaba wax tanaasul laga sameyn kareynin danaha Israa'iil oo ay tahay in wax alaaliyo waxa ay rabto la meel mariyo, haddii kale uu yiri waxa laga gudbayaa khat cas. Shaakir ayaa waxa uu leeyahay xirfadda ay Israa'iil isticmaalayso ayaa waxay tahay inay ka badbadiso tillaabooyin aan xad lahayn ay qaado hadday aragto ciddii isku dayeysa in xukuumad Falastiiniyiintu leeyihiin si rasmi loo aqoonsado in ay mamnuucayso ama ay u diideyso wasiirada xag jirka ah ee xubnaha ka ah dowladooda in ay diidayaan in wadamadaasi lala shaqeeyo, waxaana ay ka hor istaagayaan sida hadalka loo dhigayo in ay ballaarato cunaqabataynta ka dhanka ah iyo tallaabooyinka dhanka ah Israa'iil. wuxuuna intaas ku daray Israa'iil ayaa ku celcelinaysa inay isticmaalayso eedeymo ah yahuud nacayb iyo in ay dembiye u soo jeediso dadka cambaareynaya faralka Israa'iil ee xasuuqa ah. wuxuuna sheegay tallaabooyinkani ayaa waxa ay kicinayaan caro intooda badan u muuqda mid aan waxba laga qabanaynin, laakiin tallaabooyinka la qaadayo ee caalamka uu qaadayo ayaa waxaad moodaa inay aad u dardargelayso. Israa'iilna waxay isku dayeysaa inay cid walba iyo wadankii tallaabo qaadaya inay u hanjabto kana hor istaagto inay ka baarandegaan in tallaabooyin xoog leh laga qaado danaha Israa'iil. waa gartay haddaan u wareegno dhinaca Lubnaan, Faransiiska ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ka fikirayaa inuu u gudbiyo qaramada midoobay in ciidanka nabad ilaalinta ku sugan Lubnaan lagu sii dheereysiiyo waqtiga ay ku joogayaan. arrintaas inooga waran. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bilaabay inuu dood ka yeesho qaraar qabyo ah oo dowladda Faransiisku ay rabto inay ku kordhiso
xilliga nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta Lubnaan oo ay sanad ku darto inta aynan wadankaasi ka bixin. Israa'iil iyo dowladda Mareykanka ayaa lagu waramayaa inay ka soo horjeedaan in la cusboonaysiiyo waqtiga ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Ma cadda haddii qoraalkan qabyada ah uu taageerayo wadanka Mareykanka oo awoodda diidmada qayxan ah la yuurura golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhowr goor horena isticmaalay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa sheegay kama hadlayna buu yiri wadaxaajood ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhexdiisa, waxaanan wadaynaa wada hadallada la xiriirta ciidanka UNIFIL la yiraahdo ee jooga wadanka Lubnaan mustaqbalkooda waxa uu noqonayo. ciidankaas ayaa laga soo bilaabay 1978 joogay wadanka Lubnaan, waxa ayna ilaalinayeen in ciidamada Israa'iil ay ka gurtaan dhulka Lubnaan kadib markii ay xoog ku galeen 1982. waxa ayna garab siinayeen xukuumadda Lubnaan sidii ay dib ugu soo celin lahayd maamulidda xuduudka. qoraalkan qabyada ah ayaa waxa uu ogolaanayaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay UNIFIL loo yiraahdo ilaa iyo August 31 2026 inay wadanka Lubnaan sii joogaan. taasina waxa loogu talagashan yahay in ay markay waqtigaasi la gaaro ay ka baxaan sanadka soo socda oo wadanka Lubnaan. arrintan ayaa waxaa ku xiran shuruud ah Lubnaan xukuumadeeda inay noqoto cidda kaliya ammaanka ka ilaalin doonta koonfurta Lubnaan, iyadoo xisbiyada ka jira wadanka Lubnaan ay ogolaadeen in halkaan ku celiya iyadoo dhinacyadu ogolaadeen in xal siyaasadeed laga shaqeeyo. heshiiskii xabad joojinta lagu gaaray ee lagu soo afjaraya colaadii dhowaan Israa'iil iyo dhexmartay Xisbullah ayaa xukuumadda Lubnaan waxa ay geysay xuduudka koonfurta Lubnaan askar si ay u burburiyaan kaabayaasha ururka Xisbullah. waa sida hadalka loo dhigay. Israa'iil ayaa waxa ay wadaa in ay weerarto goobo ay Xisbullah ku sugan yihiin. Lubnaan ayaa hadda waxaad moodaa in arrin xasaasi ay ka jirto in hubka laga dhigo ururka Xisbullah, iyadoo golaha dowladda ama golaha wasiirada ay bishan u qabteen in ay hubka ka qaadaan ururka Xisbullah. qorshahaasi ayaa lagu soo afjarayaa sanadka dabayaaqadiisa, hase haatee ururka Xisbullah ayaa arrintaasi diidan. sidii ku xusnayd xeerkii xabad joojinta, Israa'iil ayaa la rabaa inay ka baxdo wadanka Lubnaan, inkastoo ciidamadeeda ay dhowr buqcadood oo istiraatiijiga ay ku sugan yihiin, welina ay weerar ku wado meelo kala duwan oo Lubnaan ka mid ah. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay la kulmayaan la shaqaynta ciidamada qaramada midoobe dhibaato, waxaana muuqda qaraarkan hadda qabyada ah ee laga wada xaajoonayo inuu ku baaqayo in la dardargeliyo dadaalka diblomaasiyadeed ee lagu xalilayo muranka iyo waxyaabaha kale ee xuduudka caalamiga ee u dhexeeya Lubnaan iyo Israa'iil. golaha ammaanka ee qaramada midoobay xubnihiisa ayaa ka doodaya qoraalkan qabyada ah, waxaana August 25 inta uunan dhammaanin waqtiga ay xaq u leeyihiin in nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ay joogaan wadanka Lubnaan oo 25 bisha ku eg bishan dabayaaqadeeda ku eg ka hor bishan 25 ayaa golaha waxa uu rabaa inuu cod bixin u qaado. waxa natiijada noqon doonta cid taqaan lama arko. waayahay ugu dambeyntii kulankii xalay ka dhacay aqalka cad waxaan aragnay hogaamiyaasha midowda Yurub oo si degdeg ah u safray Mareykanka kadib kulankii Jimcihii oo u dhaxeeyay Trump iyo Putin ee Alaska ka dhacay. maanta hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka waa hadal cad. ciidan Mareykan ah ma tagayaan Ukraine ayuu leeyahay. arrintaasna arrin soconaysa ma jirto, inkastoo uu yiri waxaan ka taageerayaan dhinaca hawada iyo cirka, laakiin hogaamiyaasha Yurub wixii ay rabeen mayna gaarin. waxaan u ogtahay in Putin uu helayo waxyaabihii uu doonayay. arrintaasi wal inooga waran. dadka la fagura arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kulligood waxay isku raacsan yihiin kulankii
maraykanka iyo ruushka ku dhex maray alaska labadooda madaxweyne in madaxweynaha wadanka maraykanka ay ka muuqatay in uu ka cagajiidayo inuu dagaalka qayb ka noqdo halkii uu dhexdhexaadiye isku sheegayey hadda waxaa moodaa wadamadii reer galbeedka inuu si cad ugu sheegayo inuu dagaalkaasi qayb ka noqonin markay xagga lugta timaado haddii dalal ka mid a wadamadan ay go'aansadaan inay ciidamada halkaas geeyaan waxa uu kusoo koobay keliya inuu xagga cirka ka weerari doono ama hadduu xagga cirka ka taageero ama hadduuna ka taageerin ruushka uma muuqato in lagu cabsi gelin karo xanjabaad dagaal ruushka waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu nuclearka badan waxaana muuqata wadahadalkii hadda la gaaray ruushka iyo maraykanka madaxdooda labada dhinacba waxaad moodaa inay diilo ka muujiyeen kulanka sida u dhacay wadamada reer galbeedkana awoodooda iyo galgalkooda arrimaha caalamka ayaa hoos u dhacaysay sida uu u ahaaneeyey madaxweynaha maraykanka madaxweynaha wadanka Ukraine mid lamida oo kale ayaa wadamadan reer galbeedka ku socota la'aanta wadanka maraykanka dagaal ma ku qaadi karaan ama ma geli karaan dagaalkaas qayb kama noqon karaan Ukraine ka socda ayay khabiirada hadal ku dhigayaan laakiin wixii ka soo kordha dawadaasha HBN ayaan u sheegaynaa laakiin uma muuqato inay ku faraxsan yihiin sida maraykanku u dhaqmayo ayagana haddii ay isku tiirsamaan muddo dheer ayay u baahan tahay in agab military iyo qalab iyo ciidan ay abaabulaan sababtoo ah ruushku 4 sano waqti ku dhow ayuu dagaal ku jiray waxaadna moodaa in ciidankiisu ay si fiican u tababarteen Ukraine hadda waxaad moodaa dagaalka culays xoog leh inuu ku hayo oo inay jabayso cid shaki uu kaga jira lama arko hadday Yurub ku biirtana wax weyn oo ay kordhin doonaan lama arko marka la fiiriyo qalabkooda militariga oo dagaalkaasi ku fashilmay waayahay waan arki doonaa arrimahaasi wixii kusoo kordhay aad baa u mahadsantahay maxamed daawadayaal idinkana aad baa u mahadsantihiin daawashada barnaamijka wararka caawa inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan waxaa inaga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay HBN online TV ama hore aadan lagu xirnayn kusoo biir baraha kala duwan ee internetka aan ku leenahay sida dhinaca YouTube-ka Facebookka Twitterka ama X TikTok iyo Telegramka sidoo kale macluumaad dheeraada waxaa ka heli kartaa barta internetka aan ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com inta ku kulmi doono barnaamijka midka ku xiga insha Allah nabadgelyo ku soo dhawow qaari online qurba joogta dadkayga barashadii quraanka iyo qalinkii aqoonto online lagu qorsheeyo qadka haatan laga helo waa qaari online qabso oo hadalkaygu waa qaari noqo oo quraanka ku baro online waa ubadko qurba jooga qadka iyo internetka casharada ka qaateen u kaalaya qaari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda